xaflad la kala masaaray gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada beelalo waa Nuur Derow Iimaan iyo Abduladiif Maxamed Muqtaar iyo waliba ay kididay hotel Arbiya magaalada Baydhabo. xafladda la masaar waliba ku qayb galay nabadoona dhalinyarada beela fanaaniin iyo marti sharaf kala ugu horeen waliba munaasabada ku hadlay qaar kumid ee dhalinyarada beela iyo waliba marti sharaftii ku qayb galay munaasabada xil culus la siindhiba Ilaahay si la garab gala Ilaahay guulisan deersi gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka mayba sanqar yaale hool adag oo hiigsi badan iyoonay dhafar badan ma baahan iyo sanqar yaale waayo 19 May doorashada dhiidi ku bacda mayba hamarteena dhafar badan iyo rafaad badan hamarteen oo isan hamarteen si ummada ay fadeen beelatiin dhamaantay ummada ay fadeen hamarteen mayba xambaliyay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka mayba san laha hil culus hortiin yaala mayba rajeeyay isan ragnimada intii sun ku bahdoontan runtigeed wayba eedanka faraxsana intii ana gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada beelalo way anina hadhow way waliba iyo oo iiruga malaaginta dhalinyarada mas'uuliyiinta dhamaan iirugan isin hayla dhawaay tan runtii waa eedanka faraxsana marlamaad iyo marlamaad hadhow asila waliba jeelay intii ana kuna farxad qaadana dhalinyarada saaxiibada ee isku xaafadda iska faa'iideyna isbarana يا وليبة جيلبي انتي انا فرحت على مسارك بدونيا يا بدوني كحجينك كلان يرلا بيشا مواي مركا كلان يرلا سلسي ونسكر التاقنتين برياء كل مرا كل شدا كل تراري اسكرم سدا انسكر مدار إلهي نسي انكركاري garab walan isku kuumida shankamaasooka sintaageer sida dhalinyarada gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha mayba lana dhalinyarada beesha luqaylay gudoomiye mingiidin unu dhan gudoominingatin maadaama dhalinyaro islaana mayba siin lahaa in isin dulqaad iyo dhalinyarada isku hiriyo in isin muujidaan intii dhalinyaro tiidin ku bataan in dhalinyarada kala sii jiidataan yasiin kuma hadlaan halkan ku taagay taayna oo hambaliyeeyo gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka hormar waxaan shaqo waxaan geesiyalka shangama samarko gud galay gaada marko gorda isin gifne geedba geeda kuwiina gumruna galola kuwiina gumlu wal gurida kuwiin geesina geesiya ku go'an adeegya lansadi goolebe guuhidi aan ku gabadaayo lansadi goolebe guuhidi aan ku gabadaayo geesiyalkii shangamas oo gumeysii iyo gardowladiideen gartii oo aan la gabadaaneetiin yageeka gololiyo furunta gartii oo aan la gabadaanay yageeka gololiyo furunta geesiyalkii gooda dhinkasaa iyo garboogay fadhiyaan hadii sangaar Nuur Derow lan oo aqooniyaan in badan mayba kasaw xilka wali usay mas'uuliyad walaayta lan mayba horbadan ma xil xaqowdi mas'uul mayba kilaha hambalyo kuyi koojeer saasoo kale nabadoonida ku qayb galaya ku hadlay xafladda ale masaarka waliba iyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka kala dardaaramena inay ka shaqeeyaan mideynta dhalinyarada beelalo way afka oo shanta kamaas odayaalka nabadoomada afka soo qaadalaw mayl araay aan taageersanna aan owaayaan ilka Allah siinna qaad sida sharafta leh oo mayl araay ka horumarshay ismaan gidadaaleen yeesinka mahadnagaan haddii Ilaahay ogolaado uu mayl araay yeesinka garab suume waan siinka taageersanna siinka ayidaan hambalyo gudoomiye Nuur Derow xilaqaadi hilka Allah ki laqaad hilwiinga qaadi hil shangama saqaadi Allah ki laqaad maadida koobad sharafte silaha agaasimi oo shangama saha agaasimeen yoona kama asniin boolkibal eedan kama asniin lanka waraka weeri shareediye ma
lankadi wal kawaala way la shaqeeye garab yeeli surume hadii aad la shaqeyn wal ma dhagaaji kor aniisin la shaqeeytan garab yeeli suruntan isin badan ilaahay ka qaado hambaliyo gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka hambaliyaye dad badan gabakan ka hadaleen in isin isgarab suruntan geek lay buuqi qayli alamay la raayay alala inta surunaan 24 saac isin geek isgarab suruntaan si kala dadar insha Allah beelan shanta gamaas la raw ma asalan la taa ulma udin iyo dhalinyaro inay hogaamiyaan hogaansho la hada jiraan wali iyo bisaasa asalan la taa in isin meel la raayay beel wanaag horseetan yaasiin hambaliyeey waan siin kala dadar insha Allah anka dambeyntina gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka meelo ku hadlay waliban iyo ballan qaadanay inay ka shaqeeyaan sidii yoomida ay lahaayeen dhalinyarada beelo lawaay hal ilis nuglaaday hal nees may buu war dhageysaday bani aadam may buu ma adduunyo may dhiinka jeeliya aakhirna may buu dhiinka jeeliya lanka kale walaalshay midus hadal u dhageysay antiisu ku hadalay dhageysaday waqti kaasa dhiinka jeeli naqada haani may buu madee inis kooyo is dhageysadeen wal shal qaadadeen may buu isku dambeeyay naqada insha Allah isku xirka shaleedan ku shaqeey doonno halnay ku shaqeeyay dadka kale walaaloogaana may lana yoon walaalayaal isjiid walwiino faa'iido u sheeno male lankii calool xun ana saacadun lagu bilaaw lan calool xun ma jarto lan may buu ka qalb xun ma jarto an calool xaari lan buu yahay sur ma kan wali yahay sidii cafaay oo jarno wadajir yagu wala korna lan gooshiis ku wala kor markuu marlama masada masin gooshaday inay aniga duumiyeenka doctor Abdulatif inay shaqeeytaan xafiiskii una furna tarada isiin le go'aan kanuun le tarada siin nagaan waa isiin bulshadana qaliyaad gamada isnaayna madaxa jaan qobila yara intii kale dhalinyarada markaan way fadaan inay dhalinyarada isku markooyna dhamaantiyo dhalinyarada ka tan xitaa dhalinyarada ma fadaan inay madayna odayaalka marka dhamaantiin ilaa maasantiin Oganka sasa midnimi guul ka tahay oganka sasa midnimi guul